badda Soomaaliya weli halis ku jirtaa ya marka maanta shir jaraa'id baa Turkiga dhacday oo shirka jaraa'idka waxa qabteen dawladda Turkiga oo shirka jaraa'idka waxa weeye waxay ka sheegayeen in oo Ethiopia iyo Soomaaliya ay ka wada heshiin doonaan arrinta badda ya heshiiskii weli loo soo dhow yahay ya alkum basaninka afkiiska dhayriist. There are important convergences on some major principles and specific modalities. This constitutes notable progress. We believe that a collaborative and constructive solution is within our reach. Markaan halkaas heshiis ka dhaco oo badda la kala gato waa soo dhowda badda Soomaaliya waxa halis ku jirtaa ya marka arrintan waa sheekada xunta Soomaaliya hurdada laga go'o marka arrintan waxa weeye ninkaan ay u jeedaan inta halkan ka yabqaya waxa weeye xawaalihii waxa raashanay in xabaalaha raashanaya oo la fafaganaya miya bad deynayeen lata ya aqligaas hal isticmaaldado ninkaan bad ma deynaya wallahi marka dadka markuu la joogo waxa weeye waxaan buu wada dhigist loo wajiyo dhigist ugu hadlo laakiin kama yeelayno ha ogaadeen ma dhacayso inta wiil Soomaali uu nool yahay oo socdo dhulka Soomaaliya in qayb kamid ah ay baxdahay ma dhacayso ya mar kalena meelaha kale markuu joogana waa ka muxdahay annaga Ethiopia bad ma diidanin hanoo yimaadaan ya wax la iska dhahay ma propaganda ma afkiisa ka dhahay dhigist Ethiopia inay badda gaarto isku ma haysan dagaal naga dhaxeeya annaga Ethiopia oo Soomaaliya Ethiopia ay bad u diidan tahay ma aha waxaan isku haysanaa waxay tahay Ethiopia siday badda ku soo gaaray dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u cadeeyo Ethiopia haddii ay doonayso xeebaha Soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhaweynaynaa weli marmaysan laada ya akhbaarta VOA-da dhageysta sidoo kale xeegan xariijinayaan xasan sheekh maxamuud ayaa muqdisho ka sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay in Ethiopia la macaamisho haddii ay wadada saxda ah soo marto balse aanay marnaba Soomaaliya u ogolaan doonin in qayb ka mid ah dhulkeeda ay Ethiopia xoog ku qaadato marka ninkan ay u jeedaan waxaan dawladda ku sheegan waxa weeye asaga wuxuu ka xanaaqsan yahay in Ethiopia ay u tageen Muuse Bixi uu ka xanaaqsan yahay oo heshiiskaas la galay uu ka xanaaqsan yahay asaga wuxuu rabay in asaga loo yimaado heshiiska la galo oo lacagta asaga la siiyo laakiinse waxa weeye asaga Muuse Bixi baa ka raadaysan marka saas Ethiopia halkaas bay rabaan inay tagaan marka ninkan waxa weeye hadda sida la sheegay weli lama oga inay run iyo inay been tahay dadku dhahayaan waxa weeye hadda xasan wuxuu gol yahay inuu meesha gato oo haddana dhisitaanka contractiga shirkadu asaga la siiyo saas buu gol yahay baa la sheegay marka taas waxa weeye waxa tusi doonta waxaan wax xaqiijin doonta taariikhda marka shir dambe waa ka dhacaya Turkiga ka dhacaya oo halkaas marka la isku imaanaya waa kana dhigist. We will reconvene in Ankara on the 17th of September for a third round with the hope of successfully concluding the process. Marka waa kaasa badda Soomaaliya waa kaasa halkaas ku diis